بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaan ka hadli rabaa arrin aad u khatar ah jiritaanka mustaqbalka Soomaaliya iyo ummadda Islaamka guud ahaan gaar ahaan Soomaaliya arrin ku saabsan dhalinyarada da'da yar arrintaas waxay tahay hees uu soo saaray yar la dhaho Sharma Boy oo muqbilan heestaas oo maaragtay wax foolxumo badan aad u foolxumo badan ay ka muuqdeen oo calankan kalarada kala duwan oo gacanta ku hayo. calankaas wuxuu astaan u yahay dadka akhlaaqda xun iyo maaragtay waxa la dhaho geyga af Ingiriiska iyo dadkan waxaan faafinayo nin guursanay naag guursanaysa waxyaalahaas akhlaaq xumada marka calankan astaan ka dhigteen oo kalaradan leh adduunka dhani ku faafinayaan siyaabo kala duwan. hadda calankii waxay ka soo dhigeen sida daladay ku soo sawareen kalaradooda. Soomaaliya xataa baaba'saneed dhowr 60 sano oo tacbaan ma ay iloobin inay ku faafiyaan xataa marka aan aragnays marka daladaas marka waxaan fiiriyay YouTube-ka cid maaragtay ka hadlaysa arrintan iyo maaragtay qaladkan ka dhacay. waxaan u maleynahay in dad badan ay maaragtay ka qaylin doonaan arrintan. marka hal yara waxaa ka hadlay nin dhalinyaro ah oo maaragtay Hoso Pro la dhaho kanaalkiisa waa kana marka ninkaas kaliyahan baaritaanka aan YouTube ku sameeyay ka arkay dad badan ninka caanka ahaa CK la dhihi jiro ka hadli jira arrimaha fiidiyoyada iyo maaragtay film fiiro dheer waaye. marka reaction to heestan ka bixiyay maba u soo qaadan ba arrintan inkastoo si fiican uu yaqaano daladan iyo ulijeedada iyo wax loola jeedo. anyway marka waa mahadsan yahay yarkan Hoso. qolada fiidiyowga soo gelisay kanaalka Kaskay Production la dhaho waa u soo jawaabay comment-ka wuxuu soo qoray ma aan fahmaynin calankan kalaradan iyo waxay u istaagan yihiin ma loola jeedo iyo jahilnimo ay naga ahayd maahan annaga ula jeedaan u sameeyna ma ay ahayn. way fiicanta cudurdaarka laakiin waxa ka fiican adigu fiidiyowga ka saartay meesh oo haddana heesta mar labaad aad soo duubto oo waxyaalahan ay ku jirin kalarka calankan. marka cudurdaar waxaa waa hadal ahle waa laakiin wax suubis ma aha yani qalad hadaa gasho waa laga noqdaa muqt. marka arrintaas waa qalad. marka waxaan leeyahay aniga in laga saaro heestan oo dhalinyarada Soomaalida had iyo jeer ay daawadaan. waa wax iska soconaya muqt hees la jecel yahay hadii tahay oo haddana ka hadlayso caasimada dalka faalinayso waa hees wadani u dhowdahay oo raab oo haddana dhalinyaro marka wax hal mar ama laba mar ama sanad iyo laba sano la daawanayo maaragtay iska iloobaay ma aha waxa socon doontaa. marka muuqaalkan dhalinyarada cusub oo yar aan fahmayn indhahooda way qaban doonaan. calankan ujeedada ay u faafinayaan dadka waxay tahay in dhalinyarada yar ay had iyo jeer caadaystaan calankan oo ay u arkaan wax caadi taasna waxay u taagan tahay markay calankan wax caadi u arkaan oo qurxoon waxa uu matalayo iyo dadka uu matalayo iyana inay caadi u arkaan. marka dad fiiro dheer oo meel fog ka fakarayo oo aan degdegsaneyn oo hooshooda wato oo maal iyo wax walbo yani sharikadaha adduunka ugu waaweyn iyo teknolojiyada iyo wax walbo waa ay gacantay ku hayaan dadkan adduunka maamulo shayaadiinta wadamada caalamka dhan way gaarsiiyeen howshan. marka kulley waa in la iska celiyaa ila tahay. marka arrintan aan ka hadli lahaa waxaan ku talinaa in laga saaro videoga ma aamusayn in laga saaro muuqaalka foosha xun. haddii rabaan heesta way qurxoon tahay erayadeedu way qurxoon tahay dhalinyarada dheelaayo raabka waxaasoo dhan ma xumo laakiin mar labaad ha soo duubaan heesta daladan ha iska daayaan iyo kalaradan saasaan kula talin lahaa.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.